xafladan oo ka dhacday gudaha jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda mas'uuliyiin ka socotay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ardayda wax ka barata jaamacadda iyo waliba marti sharaf kale waxaana munaasabadan lagu soo bandhigayay baaris ay sameeyeen arday jaamacadda hore uga baxday baaristaas oo ahayd faa'iidadii ama faa'iido daradii laga helay gargaarkii beesha caalamku ay siisay Soomaaliya Maxamed Cabdi Jimcaale iyo waliba Maxamed Dhaqane Muuse oo ah ardayda sameysay baaristan ayaa waxay ka warbixiyeen waxa uga soo baxay intii baaristan ay wadeen maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha 2014 waxaan halkan u taaganahay inaan soo jeediyo cilmi baaris aan ku soo sameeynay aniga iyo saaxiibkay Maxamed Cabdi Jimcaale cilmi baaristaas oo ciwaankeedu ahaa daahka rugidda guusha iyo guuldarrada gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya la siiyay markaan guda galo cilmi baaristeeda waxaan ka hadlayaa research design population-ka aan qaadanay wuxuu gaaray konton simple size kan wuxuu ahaa 44 taasoo aan ka dooranay tiradii guud research questions ka wuxuu ahaa 3 su'aal in la ogaado in la cadeeyo waxa ay tahay kaalmo dibadeed iyo taariikhda ay ku leedahay Soomaaliya in la ogaado gargaarka bini'aadamnimo ee soo gaaray Soomaaliya guul iyo guuldaro iyo in la cadeeyo waxa uu yahay gargaarka bini'aadamnimo hadda gaarsiin gargaarka bini'aadamnimo gabar ka socotay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo yana halkaas ka hadashay ayaa waxay aad u bogaadisay ardaydan sameysay baaristan waxayna tilmaantay in loo baahan yahay Soomaaliya inay isku tashato marka ilaahay waxaan ka baryaynaa hay'adaha gargaarkan soo gaaran taariikhdan kuwii isu gargaara dhexdeena isku kaalmeeya Allah naga dhigo kuwii isku soo qalbigooda isku soo jeeta Allah naga dhigo sida walaalka iga horeeyay sheegay haddaan inteynaan maanta Soomaaliya isku kaalmeeyno ma u baahanin ba hay'adaha shisheeye annaga dhulkeena ugu filan marka waxaan leeyahay Allah kuwii isku soo jeeda Allah naga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Indian Ocean Professor Cabdulqaadir Maxamuud Cutusho oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaaliya khayraad badan leedahay isla markaana haddii ay gacmaha isqabsato aan loo baahnayn gargaar nooga yimaada dalka dibadiisa Axmed Cumar Sheekh Nuur telefishka caalamiga ah Hon Cable magaalada Muqdisho.